eber 8 bilyan oo dollar ayaa loo baahan yahay 3.4 milyan oo Soomaali ah ayaa lagu gargaarayaa colaado isbeddello dhanka cimilada ah iyo barakac ayaa saameeyay tirada dadka kaalmada u baahan waxay hoos u dhacday 32%kiiba 6.2 milyan tiradii hore 4.2 milyan tirada hadda lacagta loo baahan yahay waxay hoos uga dhacday tii sanadkii hore 1.5 bilyan sanadkan 1.8 bilyan absi ayaa laga qabaa in horumarkaas ay habacsanaan ku timaado in ka badan 1.5 milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad cunayari oo aad u adag in ka badan 2.6 milyan oo qof ayaa gudaha dalka ku barakacsan oo ku nool duruufo aad u adag intii lagu guda jiray 2018 hay'aduhu waxay bil kasta gargaareen 3 milyan oo qof qorshaha sanadkan ayaa ah in la gaaro 3.4 milyan oo qof oo boqolkiiba 81 ka ah 4.2 milyan ka kaalmada u baahan howlaha gargaarka waxa uu sanadkan xooga saarayaa nafbadbaadinta nafaqaynta daryeelka iyo soo kabashada dadka nugul